بسم الله الرحمن الرحيم وإذن سلامي أصحابي ميل walba joogtaan waa walaashii naciimana ka haddana mar labaada usoo noqday ama maalin kale iyo waaye kale ayaan usoo laabtay qodobkaygii waanada ahayd marmar baan aniga gabdhaha wax u sheegaa ama la taliyaa ama waaniyaa gabar iyo wiilba maasha allah tabaarakallah intii ilaahay ii baray karaankayga waan siinayaa wax aan meelaha kusoo arkay maaha waa waxaan aniga aan soo arkay gabar Soomaaliyeed waxa ay soo codsatay oo ay rabtaa maanta inay ogaato ninka wanaagsan ee xaajiga wanaagsan mustaqbalka dhow iyo kan fogba nolosha iyo mustaqbalka u fiican ilmahana muxuu ahaa mas'uuliyadiisa qaadi kara ilmihiisa mustaqbalkana ka fikiraya peace and love idilay maasha allah abaayo waxaan ku leeyahay jawaabtaada waa tan dhageyso igana gudoon adoo raaliya gabadha sida tan ku bilaabanaysaa horta walaalay macaanay aad u mahadsan tahay waadna ma aragtay maasha allah aqli badan tahay waxaan ku leeyahay ilaahay xaajigaaga mid khayr qaba Allah kaaga dhigo mustaqbalkaagana mustaqbal fiican oo ma aragtay muxuu ahaa fashil ku soo dhamaan Allah ka dhigo marka abaayo qodobka koowaad waxa weeye gabar iyo wiilba waa isku mid weeye ibni aadan baan nahay calooshaana lagu soo qaado 9 bilood baana lagu soo waday nin ka facwey ma jiro inkastoo xagga diinta islaamka ninka uu boqolo yahay gabadhana konton la tahay maasha allah waa ogolnahay diinteena inoo fasaxda waa ogolnahay alxamdulillah abaayo sida tan ku bilaabanaysaa ninkaaga mustaqbalka ah ee wanaagsan ee aayaha iyo awlaadda iyo mustaqbalka soo socda ka fikiraya horta number 1 waa ninka mataqaanaa ku tixgeliya waa ninka ku wanaajinaya waa ninka mataqaanaa waalidkiisana ka fikiraya waalidkaagana ka fikiraya si waalidkiisa horta nin waalidkiisa ka fikiraya unbaa waalidkaagana ka fikiraya la socda gabdho gabar iyo wiilba qof waalidkiisa baari waa waalidka qofkan mustaqbalka uu la wadaagay ma nacayo mana dhibsanayo qodobka koowaad labaad waxa weeyaan qofka mustaqbalka iyo aayaha aad ka leedahay ee aad wada joogtaan dariskaaga iyo asxaabta iyo dadka isku dhowdihiin iyo qaraabada wuu wanaajinayaa wuu xiriirinayaa haddii guriga yimaadaanna wuu soo dhaweynayaa haddii ayaga joogaan u yimaadana ama ay timaadana waxa weeye way soo dhaweynayaan labadooda weeyaan gabar iyo wiil ma kala qaadayo mustaqbalkiina ilaaliya qodobka saddexaad qofka waxa weeye salaadiisa wuu ilaalinaa 5 waqti muxuu ahaa soonkiisa wuu soomayaa sadaqadana wuu baxsanayaa zakadana wuu baxsanayaa masaakiintana wuu soo dhaweynayaa wuu quudinayaa intaas baa lagu gartaa qofka wanaagsan ficiladaas haddaa ku aragtiin qofkaas walaalayaal ha sii daynina waa qof fiican oo wanaagsan oo mustaqbalkaagana ma aragtay hadhow meel sare geenaya maasha allah gacanta furan weliba nin gacan furan hadduu yahay iyo gabar gacan furan aan ka hadlinba aan ka doodinba wax la yiraahdo marti iyo daris iyo qaraabo iyo ehel iyo walaal kama hadlaan ma soo hadal qaadaan waxba kama sheegaan ma dhahaan waxan ma nacay iyo waxan ma arki karo iyo waxan hal iga qaado iyo maxay ahayd ama anaa meesha ka guuraya iyo ama ayaga meesha ka guuraya iyo waxaas ma dhahayaan qodobadaas lagu gartaa labada qof ee wanaagsan ee mustaqbalkaaga u fiican gabaray aan wiilo labadiinaba taas idin fiican nin dhahaya hadaaba aragtay hooyaday gabadhayda ka hormaraya xaaskayga awalba caasi waalidiin ahaa ama hooyamaba haysaninba markii horeba no way gabadhan sidoo kale marka qodobadaas weeyaan qodobada aan kuu sheegi doono qodobka 5aad waxa weeyaan ama 6aad aan iraahdo gabar qodobka 5aad gabar ama wiil hadaa aragtiin dhahaya heblaayo gaariya loo gaday heblaayo guri baa loo qaaday heblaayo hebel ninkeeda saan u sameeyay heblaayo dukaan u furay heblaayo ninkeeda kan u sameeyay hadaa aragtay ama hebel muxuu ahaa uu dhaw ninka heblaaya ka fiican uu ku dhaho heblaaya ka qurux badan heblaaya ka wanaagsan uu ku dhaho ka fogow ninkaas mustaqbalkaaga uma fiicno si joogis uma baahnidba
calaamadahaas hataa aragtiin ilmaha u dhalina nin iyo naagba ilma yaa loo dhalin waayo maxaa dhiga hadal keenay oo inay heblaayo waasaan hebelo waasaan inay la dhaho maxaa keenayaba waa edebdara marka mustaqbal iyo rajaha ka sugina dadkaasoo kale dadka haddana waxaan ku sii xigsiinayaa oo kale dadka aan isku kalsoonayn kalsoonidu waa shay cajiiba oo qaaliya weliba aan isku kalsoonayn oo muxuu ahaa aan maaragtay kalsoonida waxaa ka mida inuu qofka mataqaanaa meel cidla waxa looga soo sheegayaa wuu horboodaya qofkii kabasaqaad waxaa lagu dhaha ninkaaga waxaa arkay oo naag la taagan hadduu la taagan yahay waxaa laga yaabaa inay business ka wada hadlayaan waxaa laga yaabaa inay waxyaalo kale ka wada hadlayaan adigu ha horboodin si kastoo lagu dhaho haddii lagu dhaho ninkaaga meesha taagana aragna ninkaaga guri heblaayo gelaya aragna ninkaaga meelaha taagtaagana aragna ilaa aad caddayn aragtid gabare ilaa caddayn aad aragto ha ku degdegin kuleetiga qabanin ninka ifur ha dhihin aad aragto ayagoo isla sawiran ama aad aragto sawir ay isla galeen ama aad aragto ilmo uu dhashay markaa go-aan gaar waayo weli jaano socosataa ilaa jaano fii ku siiye ninkana sidoo kale haddii aragtid iyagoo isla sawiran naagtii nin kale oo macnaha sawirka waa mid laxaday oo tuugnimo way jirtaa laakiin sawiro waxaa jiro oo caadiyan la isla ogol yahay oo saa la isku haysto dhaac la isaga qaadan yaa kaamara caadiya laakiin sawiro maaha inay ayagoo halkaa wada fadhiyaan intuu qof islaameed soo xaday kuu keeno no way kaas lama rabo kaasoo kala qaadanin intaasaana uga baxaya waxaan leeyahay mustaqbalkiina ilaaliya aayihiina ilaaliya horta tiirarka aan soo tilmaamay diinta islaamka waa in lagu daro qofka hadduu yahay qof wanaagsan waalidkiisa baariga ah muxuu ahaa tukanaya salaadiisa dhaqaalahaagana meel kuga saaraya aan kula xisaabtamin ku dhihina ani shalay baan lacag keenay adigu maxaad u keeni lahaada aniga daraad baan lacag keenay aniga shalay baan bixiyey saliidda maxaa dhameeyey saliiddii aaway weelka ku jira maxaa soo kii aan daraad soo gaday baqayl wey kaasoo kale baqaylka xataa wuu ku jiraa baqaylnimo haddaa ka darantid ka fogow ninka baqaylka ah gabadha baqaylta ahna ayada baqayl ma noqdaan umalayna gabdhaha warwa isoo sheega asxaabay gabdhaha baqayl ma noqdaan weligay gabar baqaylana ma arkin waa deeqsi gabdhaha maasha allah laakiin waxyaalo kale ku xumaan karaan I think ma umalayna gabar baqayla inay jirto okay wiilasha unbaan ogahay nimanka unbaan ogahay hadee intaasaan uga baxaya asxaabay subscribe iyo like iyo share hala ii dhaho waa naciimanalka waxaan idin leeyahay peace and love please caawiya subscribe-kiina u baahanahay love-kiina u baahanahay comment baa idinka rabaa hadal macaan oo qurux badan oo wanaagsan isoo qora waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi